ilaahay baa wuxuu yidhi wadduxaa maalinkan ku dhaartay barqada waxa looga jeedaa maalinkan ku dhaartay walleyli habeenkii baan ku dhaartay idaa sajaa marka uu madoobaado maa wadacaka rabbuk rabbigaagu kaama tegin nebi maxamed wamaa qalaa ay wamaa qalaaka kumana cadhoonin walal aakhiratu jannaduna khayrun laka way kaaga wanaag badan tahay min alulaa tan hore adduunyada wala sawfa hadhow baa yucdiika rabbuk rabbigaagu nebi maxamed wuxuu ku siin doonaa deeq weyn oo fatardaa markaasaad raali noqon ood farxi alam yajidka yatiiman ilaahay miyaanu ku helin adigoo agoona faaawa markaasuu ku soo dhoweeyey wawajadaka daallan wuxuu ku helay adiga oo ambadayoo fahadaa wuu ku hanuuniyey wawajadaka wuxuu ku helay caa'ilan adiga oo faqiira faaghnaa qani buu kaa dhigay faama alyatiima falaa taqhar agoonka ha dhibin waama saa'ila falaa tanhar qofka wax ku weydiistana ha u hanjabinoo ha huruufin waamaa binicmati rabbik rabbigaagu nicmadiiyo deeqdu ku siiyeyna faxadid ka waranoo sheeg ku mahadnaqo alam nashrax buu ilahay yidhi miyaanaan waa suuradda ku xigta alam nashrax laka miyaanaan kuu ballaadhinin adiga nebi maxamedow sadraka laabtaada wawadacnaa canka wisrak miyaanaan kaa dejinin oonaan kaa dulqaadin dembigaaga alladii anqada dahrak kaasoo dhabarkaaga cusleeyey warafacnaa laka dikrak sharaftaadii baanu kor yeelnay fa inna maca alcusri yusran waxa weheliye dhibaatada fudayd inna maca alcusri yusran dhibaatadaa la soo sheegay fudayd kalaa weheliya fa idaa faraqta markaad ka baxdo fansab howlgal wa ilaa rabbika farqab rabbigaana rajee waxaad ka sugayso jeclow sababtay suuraddani ku soo degtay waxay ahayd nebi maxamed sala allahu calayhi wasalam waxaa aflagaadeeye gaaladii maka la joogay maalmo kooban baanu waxyuu ku soo deginoo ama nebiguba wuu yaro xanuunsaday markaasaa cibaadadii uu yareeyo waxay arkeen isagoon tukanayn umu jamiil naagtii la odhan jiray kii inkaarta qabe abijahl uu qabay iyo qaar ka midaba markaa dacaayada waxay idhaahdeen rabbigiisii maxamed wuu ka tegey beryahan ma aragno dhaqdhaqaaqiisi iyo tukashadiisiiyo ma aragno markaa waxaa muuqanaysa wixii uu sheegi jiray inuu barbarkiisa ka baxay oo keligii uu noqdo ilaahiisii waayey ilaahay baa subxaana wa tacaala afxumadooda iyo edebdaradooda uga jawaabay oo nebi maxamed sala allahu calayh wasalam jawaabtii ka xil qaaday marka ilaahay labada arrimood buu ku dhaartay waa habeenkiiyo maalinta waduxaa barqadaa la ydhaha waqtiga qoraxda kulusha